khilaafaad xooggan oo soo kala dhexgalay ururka al-shabaab iyaga oo laba garab u kala jabay barnaamij xasaasi ah ayaynu idinkaga haynaa kala jabkooda iyo weliba khilaafka waxyaabaha sababay sidoo kale dowlada shisheeye oo ciidamadii ugu badnaa ka qoranay gudaha soomaaliya mahad maxamed salaad agaasime hay-adda nisa oo looga yeeray aqalka baarlamanka dowladda soomaaliya oo la wareegayso hantida dadka shacabka ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qeybgelayo saaxiibkay gooni iyo weliba faragood oo arrimahana si weyn oola socday gooni soo dhawow marka hore haddii aan ku bilaabo khilaaf xooganba waxa uu soo kala dhexgalay ururka al-shabaab iyadoon ognahay maalmihii u dambeeyey in dagaalo xoogan lagu hayay isla markaana dowladda cududeeda iskugu geysay la dagaalanka ururka al-shabaab haddaba khilaafkan soo baxay muxuu yahay cukaasho horta waa mahadsan tahay khilaafka midka ugu weyn ee soo baxay wuxuu ka socdaa labadana ugu sarreysa dalka oo ururka al-shabaab labadaasna waa mid mahad karatay mid kalena waa axmed abu cubeyd ninka loo yaqaan ama axmed diri ninka loo yaqaan marka labadooda waxay isku khilaafeen waxaa la isku haystaa amiirnimada laba garab ay u kala jabeen marka qaab qabiilna waa u kala jabeen oo mahad karatay maadaama uu beesha hawiye ka dhashay iyo beesha dir ninkanna waxuu ka dhashay beesha dir marka laba beel ay u kala jabeen cali dheere iyo ninkii la yihahdo mahad karatay isku group ayay noqdeen marka waxay dhaheen waana ciidamada ugu badan dadka haysta waa ayaga marka waxay dhaheen anaga waan kala baxnay ururka marka groupkaas waxay ku dhawaaqeen in mahad karatay uu yahay amiirka ugu sarreeya ururka al-shabaab axmed diri abu cubeydana waxba kama jiraan laga soo qaaday marka khilaafka halkaas ayuu ka bilowday labadoodana waxaa waaye in gacan ka hadal oo jubbooyinku dhex mara ayaa la rajeynaa ayaan dhexdaasana mar ayay soo baxday inay gacan ka hadal oo dhex maray laakiin weli waxay isku dayaan inay khilaafka qariyaan ninka la dhaha cukaashow laakiin ururkan waxaa soo maray madax kala duwan oo ugu horreeyey aadan xaashi ceerow markii la dilay kadib waxaa la wareegay axmed godane hadda axmed diiriya abu cuweyda wuu nool yahay see marka khilaafkan intuu usoo baxay loo haweystay booska isaga u haystay khilaafkan wuxuu ku imaaday nin la yidhaahdo cabdulaahi yare ama cabdulaahi nadiir oo gantaal lagu dilay ayaa wuxuu ahaa dhaxal sugaha axmed diiriya marka ninkaas maadaama la dilay booskii dhaxal sugaha waxaa sugayay mahad karatay maadaama uu yahay ku-xigeenka ururka al-shabaab micnaha amiirka guud ee ururka al-shabaab ninka kuxig maadaama uu yahay marka dhaqanka u degsan ragga sarsare waxaa ka mid ah in dadka koonfurta soomaaliya ama beelaha hawiye u dhashay ama daaroodka u dhashay inaan loo dhiibin xubinta ugu sarreysa ururka al-shabaab marka wixii uu filaya meeshuu ku waaya mahad karatay waxaa la keenay nin kale oo reer hargeysa ah oo ku-xigeen u noqon doono ama amiir u noqon doono haddii abu cubeyd meesha ka baxo khilaafka meeshasuu ka dhashay marka waa la isku dhacay mahad karatay iyo gruubkiisana waxay go-aansadeen in dowladda wada hadal la galaan ayna laba garab u kala jabaan haddana wuxuu dhahay amiirka ururka al-shabaab aniga ayaa ah mahad karatay waxaana xiriir iyo wada hadal la geli doonaa dowladda federaalka soomaaliya weli haddii aan kula sii joogo waxaa jirta xog kale oo istibaaxaysa ama sheegaysa in mahad maxamed salaad agaasimaha hay-adda nisa in looga yeeray baarlamanka isla markaana la doonayo in su-aalo badan oo dul hoganaya kana mid yahay kiiskii farxaan qoroole in wax laga weydiiyo waa sax horta baarlamaanka dhammaadka bishan ayay kulmi doonaan waxaana loo yeeri doonaa sida wararka loo sheegayo waana lagu wargeliyey mahad salaad in loo yeeri doono marka mahad salaad marmarsimo ayuu keenay shaqooyin fara badan ay yaallo waxaa kamid a howlo dibada ah inaan ku mashquulo dibadda ah ayaa laga yaabaa baarlamaankana ma hortegi doono marka wararkaas aada usoo bateen mahad salaadna waxaa lagu haystaa kiiskii farxaan qarool in wax laga weydiiyo iyo kiisas kaleo magaalada muqdisho ka dhacay taliya ku-xigeenkii oo haramcad oo isagana la xiray ilaa 6 sargaal oo kale oo ayagana haramcad ka tirsanaa la xiray waxyaabo badanaa mahad salaad la weydiin doonaa su-aalaha uu ka baqaya in la weydiiyona waa taas sababta uu u diidan yahan waxaa waye in meesha baarlamaanka inta la horgeeyo su-aalo lagu weydiiyo waayo marka cabsidaas ayaa jirto baarlamaankana dhammaadka bishan marka kulmana la ogaan doona cukash mahad salaad awood intee la-eg ayuu mataqana ku dhex leeyahay dowladda markii loo fiiriyo hawsha isaga mataqaana uu hayo hay-addana tan iyo marka isaga uu qabtay fadeexado badan baa mataqaana dul hooganayay xasan sheekh ma kula tahay haddii uu diiday baarlamanka inuu hor imaado in uu xilka weydaariyo mataqana ka qaado horta awood weyn oo dowladda federaalka soomaaliya dhexdeeda ku leeyahay mahad salaad xasan sheekhna waxaa lagu yaqaanaa beesha oo mahad salaad ka dhashay aad ayuu u qadariyaa oo kuma degdego marka mahad salaad saaxiib dhowna yihiin dhamo jidiidna way ka wada tirsan yihiin marka xashi maxamuud haddii baarlamaanka ninkaas oo diido uu ku qasbanaan doono in xil ka qaado haddii kale caab iyo faxshir uu ka qaadi doonaa marka kuma degdegi doono laakiin wuxuu qiimeyn doonaa sida uu la dhaqmo baarlamaanka federaalka soomaaliya haddii aan u tago dhankan kale ee mataqaana saaxiibka isagana faragood arrimahan si fiican ula socday faragood barnaamijkeenii hore waxaan ku sheegnay dhowr maalin ka hor inay jiraan dowlado shisheeye oo soomaaliya ciidamo ka qoranayo doonayana in danahooda ay u adeegaan iyo weliba TPLF oo loo raadinayo in mataqaana laga siiyo
saldhigyo ciidamo ay ka qortaan ama ay ku tababartaan gudaha soomaaliya xogahaasi isha ayaa soo marisay maxaa kaaga baxa bidhaano aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa kaloon u mahad celinayaa saaxiibkayga ila wadaagaya ama ila mushaarakeynaya barnaamijkan aadka u qurux badan haddii aan guda galo waxa weeyaan su-aashaada kooxda TPLF oo dagaal ka wada waqooyiga dalkaasi Ethiopia sanadkii hore 2021 dagaalo xoogan oo ay ku soo qaadeen dalkaasi Ethiopia gaar ahaan dawladda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inkastoo ay jirtay propaganda fara badan oo kooxdaasi ay wadeen oo xilligaas ay tilmaamayeen in 150 kilomitir ay u jiraan magaalada Addis Ababa waxaa soo baxaya kooxdan oo 27 sano bidhaano dalka Ethiopia ka soo talinaysay in ay leeyihiin xidhiidho fara badan oo diblomaasiyadeed xilli ma garanaysaa ay webiga Abay ama webiga Nile ay isku hayaan dalkaasi Masar ay doonayso dalkaasi Ethiopia inay khalkhal guudba ay ka abuurto ayaa waxaa jira in ay isku xidh ay jiraan xilligii uu ku guuleystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15 May sanadkan doorashada oo ay qayb libaax ay ku lahaayeen dawladda Masar iyo dawladda lagu magacaabay Imaaraadka Carabta iyo waliba dalkaasi Mareykanka iyo waliba wadamo kamid ah qaaradda Yurub sida Ingiriiska iyo wadamo kale ayaa la sheegayaa inay kooxdan dabada ay ka riixayaan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu cadaadinayo safarkii qarsoodiga ee dhawaan uu ku tagay dalkaasi Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai ayaa waxaa loo soo bandhigay bidhaanow in kooxda TPLF laga siiyo saldhigyo waaweyn oo ay ku tababartaan ciidamada magarasa ay doonayaan in ay kula dagaalamaan xukuumadda Abiy uu hogaaminayo marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhawaan martiqaad lagu sameeyay dalkaas Ethiopia ama booqasho ku tagay lagu soo dhaweeyay afgarad iskaashi iyo dhanka amnigana ay uu la saxiixday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa la sheegay inuu arintaas aad uga cagajiiday waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu taagan yahay meel bar control oo u dhaxaysa ma garanaysaa laba daran mid dooro ama siyaasadda Ethiopia iyo ma garanaysaa wada socodkeeda dooro ama kooxda TPLF oo dabada la gashay dawlado fara badan sida Masar Imaaraadka Carabta iyo Ingiriiska iyo dawlado fara badan labada mid dooro arintaasi waxa ay keenaysaa maalmo dhaweyto waxaan ka hadalay bidhaanow in ma garanaysaa wada hadalka ay ka cagajiidayaan kooxda TPLF oo awal hore doonayay in ma garanaysaa ay wada hadalka galaan arintaasi waxaa sababtay dawladda federaalka Ethiopia ayaa ku awood badan dagaaladan waxaana la soconaa in ma garanaysaa deegaano fara badan sida Diarkay Shareera Islaambasa iyo waliba gobolka maxaan ku dhahay meesha lagu magacaabo gobolkan Xabashida in guud ahaan inta badan faraha lagu bixiyo haatan uu ka socdo shirka lagu magacaabo maxaan ku dhahay Fana lagu magacaabo ka dhacaya magaalada Baxardaar caasimadda gobolkaasi Xabashida marka arrimahaas markii la isku soo duuduubo waxaad moodaa in reer galbeedku iyo waliba dawladda Masar oo dabada ku haysa dawladda Imaaraadka oo dhaqaale fara badan iyo ma garanaysaa ay u adeegsataa danaheeda in ay dabada ka riixayaan in kooxda TPLF laga siiyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya saldhigyo in laga siiyo taasoo mudo inayna u suuragelin in kooxdaasi laga siiyo maxay tahay marka Soomaalida danta ugu jirto in ciidamo iyaga ay leeyihiin in intii la qorto haddana dalkooda mataqaan lagu burburinayo والله أرنتني وحوي كان لجان تاعي بربك كلام مركي لقى فيريو إذا مدني وحأي كفولين دونان وإذا مو إلا حتى وحي قرتن كون يلا بقول سيد الشيء يو أي مشارات كده يقلب كده أي سين دونان مركا إذا مدني دولة الإمارات كأي أفولين دونان قرشيال فربضن أو لجال يهدلك الصومالي قرشياش أصبح حكم ده دنا فربضن أي كلين جمهورية الفدرالية الصومالي وحنا جرى سياسيين فربضن يزحف فربضن أو كسور جدا maxaan ku dhahay faragelinta Imaaraadka iyo dawladda Masar ay wadaan marka waxa la doonayaa qorshayaashaas rag u fuliyayaa la doonayaa oo ay u adeegsadaan lacagta dhawaan waxa jirtay in taliyaha booliska gobolka Banaadir lagu amray 430 oo 30 ku saraakiil tahay inuu soo maro si ay u tababaraan dawladda maxaan ku dhahay Imaaraadka Carabta mushaaraadkooda iyo qalabkoodana loo bixiyo marka arrinta waa arrin la isku hayo dhawaan waxa jiray shir ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi maxaan ku dhahay Turkiga oo looga arinsanayo guud ahaanba khalkhalka siyaasadeed ee maxaan ku dhahay ka jira guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo dabacsanaanta faraha badan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu golduleelinayo wadamo aan dan u ahayn Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waad maasan tahay saaxiib Faragod haddii aan mar kale ku noqdo saaxiibkay gooni soo dhawow waxaan ognahay dawladda Soomaaliya inay al-shabaab ka jirto dagaal isla markaana maalin way jir jiray oo qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta
uu sheegay in warbaahinta aan loo ogoleen inay baahiyaan wararka ay sheegaan ururka al-shabaab. haddaba maanta mar kale go-aan kale ayaa soo baxay kaasi oo caqabad ku noqonayo dadka ganacsatada ee soomaaliyeed. go-aankaasi muxuu yahay? go-aankaas cukaasho waxaa waaye waa horta ganacsatada waxaa lagu amray in aysan la macaamili karin ururka al-shabaab. maalin walba barnaamij cusub soo baxo, dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saartaa hab cusub ee kula dagaalaysa ururka al-shabaab. marka waxaa la soo saaray ganacsatadii la macaamiisha ururka al-shabaab in hantidooda lala wareegi doono, hadday hoteelo leeyihiin, hadday guryo leeyihiin, hadday leeyihiin isha ganacsiyo kale ama shirkado isgaarsiin ay leeyihiin, in lala wareegi doono si caadi ah. dowladda federaalk soomaaliya ula wareegi doonto hadday la macaamilaan ama lacag u diraan. marka akoonadooda iyo waxaa la tixi raaci doonaa iyo simkaarada ay isticmaaleen. hadday ganacsi la sameeyeen ururka al-shabaab, hantidooda si cad ayaa loola wareegaa. muddo hadda 2 isbuuc laga joogo waxaa lala wareegay 5 guri oo laga helay qaraxyo iyo dad degan oo ururka al-shabaab ka tirsan. 5 guriba dowladda la wareegtay. marka cabsi fara badan ayaa jirto. shacabka soomaaliyeed iyo ganacsadana arrintaas aad ay u saameynaysaa cukaasha. laakiin intii dadkan hantidooda lala wareegi lahaa soo kama haboono shirkado waaweyn baa jira oo mataqaanaa waxaan u fududay sida mataqaanaa shirkadda dahabshay ee shirkadda la yidhahdo hormuud iyo kuwa lamide iyo weliba salam bank oon ognahay lacag u badan mataqaanaa inay maraan. marka shirkadahaas in cadaadis la saara soo ma haboonaan lahayn oo mataqaanaa lacagaha EFC-ga iyo EDAB mataqaanaa la marinayo intii mataqaanaa dadka masaakiinta ah lagu wareegayo. horta cukaashow inta badan targetka waa shirkadaha waxa lacagta ugu badan siiyeen waa ayaga. marka warka ganacsatada markii la dhahayo waa la dul marayaa moogiye dadka yaroo dukaamanka yararkii wax iska haysta ma ah. dadka shirkadaha weyn haysto waxaa kamid ah hormuud, waxaa kamid ah dahabshiil, salaam bankina hormuud ay hoos tagtaa. marka ayaga ayaa loo dan leeyahay. waxa aad loo target garayna waa ayaga. waa sanad walba waxaa leeyahay waxay siiyaan lacag $12 milyan ururka al-shabaab ay ku wareejiyaan. shirkadaha loo socdan waa kuwa waaweyn oo inta badan dhaqaalaha bixiyo cukaash. waad mahadsantihiin daawadayaal. arrinkaasna wuxuu ahaa maanta markii uu shir jaraad u qabtay wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya. weli barnaamijkeena wuu sii socon doona waxaana qayb ka ah ciyaartii maanta ay wada ciyaareen dowladda mataqaanaa Soomaaliya iyo weliba South Sudan. faragod soo dhawow. maanta ciyaartaasi waa daawanaysay, xiise gaaran way lahayd. adiga iyo mataqaanaa weliba gooni mataqaanaa labadiiba ka hadli doontaan. ciyaartaasi maanta say kula muuqatay? waxaan arkaynay in nashaadaad badan ay ka muuqdeen. gooniyo horta anigu xagga ciyaaraha aad baa lagaga fiican yahay oo waxaa weeye aad uma sii daawado, laakiin ciyaartani waxay leedahay xiise gaar ayay lahayd. waxaa la yidhi midda kale waan ku yar waxaysanaayo markii la yidhi 17 jirka laftigayga waxaan rabay horta inaan bal yar jiribka laabo inaas ku yar daraan rabay. marka taasna waan ka yar xumaaday. marka waxaa weeyaan laakiin si guud ummadda Soomaaliyeed maadaama ay koob dee ummadda Soomaaliyeed usoo hoyanayeen ayaan ku taageerayay. marka xulkan 17 jirada ah waxa ay la ciyaarahayeen xulka waddanka lagu magacaabo koonfurta Suudaan. koonfurta Suudaanna markii shalay muuqaalkooda la soo bandhigay aan waxaan lahaaba cukaasho wax badan kama keeni doonaan baan is lahaa. rag waaweyn oo magaranaysa ilaa 25 jir ayaa meesha la keenay. koonfurta Suudaan iyo Suudaanna bahal fuul iyo ceesh la yiraahdo ayaa laga cunaayo. waa niman wada feedha buuran weyn. marka wiilasha Soomaaliyeed ugu naxahayay umbaan arkayba iyagoo bahasha sidaad moodayso magaranaysa dabay nimanka ogala dhaxbaxaya. marka guushaas horta ummadda Soomaaliyeed baan la wadaagaynaa. waana farxad u soo hoyatay. maxaan ku dhahay inta badan waxa aad u daawanaya saaxiibkay gooni. gooni adiga bal ka waran waad arkaysa maanta xamaasad ba ka muuqatay. ciyaartan finalka loo soo gudbay Soomaaliya iyo weliba South Sudan waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay u soo gudubto. xamaasadii maanta aad muujinaysa maxay ahayd? horta cukaasho waa maasan tahay. horta xulka qaranka Soomaaliya 17 jirada waxay ka qayb qaateen 3 kulan ay soo ciyaareen. waxay la soo ciyaareen Ethiopia 1-0 uga badiyeen. waxay la ciyaareen Uganda 1-1 ay galeen. waxaa looga badiyay Rigoreal oo 7-8 ah. marka hadda finalka ay ahayd South Sudan ay 3-1 uga badiyeen. marka aad iyo aad ay u dadaaleen. wacdarihii maanta la dhigay anaga farxad ayana gelisay. shacabka reer Nairobi wacdaro aad u fara badan iyo dumaashaad ayaa ka muuqday. shacabka kale oo ayagana reer Ethiopia u mahad celinaynaa oo dowlad deegaanka Soomaalida oo garoonka soo camiray aad iyo aadna ugu dadaalay inay dhiirigeliyaan dhalinyaradaas. marka waxaan dhihi karnaa shacabka Soomaalida hambalyo. dhalinyarada Soomaalida ururka Sakafa koobka kamid ah oo 17 jirada ay qaadeen. waana markii ugu horeysay taariikhdaas ay sameeyaan. marka xulka Soomaaliya ayadoon laga badin ayay koobka ku guuleysteen. waad mahadsantihiin labadiina daawadayaal. waxaa intaas kusoo gabagabeynaa barnaamijkan kooban iyo weliba xogo xasaasi ah oo idiin soo gudbinaynay. muuqaalada shir garay asxaabtiina la wadaaga. waad mahadsantihiin.